kadib markii aan shaqadaan galay aan quraacday xaafadda saa uga dhaqaaqay waxaan qaaday hooyo iyo laba wiil oo la socda marka bac madow way wateen way soo fuuleen waxay igu yidhaahdeen un dhakhtar baad nageensaa dhakhtarkii oo u dhow xaggan agagaarka taalada sayidka magaalada Jigjiga ayaan geeyey waa soo degay bacdi madowgeed baan eegay waa bac madow oo lacag ka buuxdo oo aad lacag uga buuxdo daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka tus toddobaadkan hooyo Soomaaliyeed ayaa bajaaj ay raacday uga tagtay lacag gaaraysa ku dhawaad $7,000 hooyadu waxay rabtay sida la sheegay in lacagtaasi ay u isticmaasho gargaar caafimaad iyada iyo wiil xanuunsanaa waxa maqaala in ay iibisay qaar ka mid ah xoolaheeda si ay u hesho lacagtaasi haddaba bajaajlihii waxa uu ku dejiyay isbitaal ku yaal magaalada Jigjiga wuuna ka tagay wax yar kadib hooyadii waxay ogaatay in lacagtaasi ay ku ilowday bajaajkii kadibna halkaas walwal iyo murugo uga bilaabatay bajaajkii oon lahayn biilkii isbitaalka warkiiba daa hooyadii way rajo beeshay markii dambana isbitaalkii ayay iyada oo murugaysan ka tagtay haddaba saacado kadib wiilkii bajaajka waday oo lagu magacaabo Guuleed Ibraahim ayaa boorsadii lacagta ka dhaxalay bajaajkiisii maxaa dhacay kadib Guuleed Ibraahim waa wiilkii boorsada helay waxaana noo suurta gashay inaan wareysano Guuleed ku soo dhawow barnaamijka tus waa ku soo dhawaanaa maasanta marka hore Guuleed waxaan doonaynaa inaan kaaga mahadcelino sida sharafta leh ee nooga aqbashay wareysigan waad maasantihiin Guuleed inta aan barnaamijka u guda gelin waxaan jeclaan lahaa marka hore bal inaad isbarto dadweynaha ku daawanaya waa kuma Guuleed dabcan magacaagu saddexan meeshii aad ku dhalatay iyo waliba bal qoyskaaga inta walaale ee kula dhalatay horta waxaan ahay Guuleed Ibraahim Ismaaciil waa ku nool magaalada Jigjiga waxaan ahay kamid ah dhalinyarada Jigjiga ee ku dhashay magaalada Jigjiga familigayguna Jigjiga ayay galaan waxaan familiga ka koobanahay 4 wiil iyo gabdhood iyo aabbo dhintay asaguna Allah u naxariistay may aabbo Allah u naxariisto jannatu firdawsana ilaahay ka waraabiyo haddaan su'aal ku weydiiyo ma waxaa tahay iskaabulo mise xaas ayaa tahay anu single man maasha Allah ilaahay ku barakeeyo gabar wanaagsanna ha ku siiyo ayaan leenahay aan u soo dhaadhacno maalinkii ay dhacdadu dhacday waxaan jeclaan lahaa bal aniga iyo dadweynaha maalinkaas inaad noo dulmarto markii aad soo kacday kadib nooga soo bilowday ilaa markii aad la kulantay hooyada maxaa dhacay markii aad soo kacday shaqada u diyaar garowday kadib kadib markii aan shaqadaan galay aan quraacday xaafadda saa uga dhaqaaqay waxaan qaaday hooyo iyo laba wiil oo la socda marka bac madow way wateen way soo fuuleen waxay igu yidhaahdeen un dhakhtar baad nageensaa dhakhtarkii oo u dhow xaggan agagaarka taalada sayidka magaalada Jigjiga ayaan geeyey dabcan dad badan ayaad maalinkii qaadaa wayna adag tahay inaad qof kasta xasuusato Guuleed ma xasuusataa hooyadan iyo goobtii aad ka qaaday si fiican baan xasuustaa hooyada qof ka dambeeyay oo maalinkaas qaadayna ma ayna jirin waa gartay dadka aad qaado wax sheeko ah ma idin dhex maraan alla sheekooyin fiican badankana dhex mara dadku waa dad fiican waa gartay hooyadan wax sheeko ah ma idin dhex mareen bal wax ma ka xasuusataa wallahi hooyada wax sheekoona dhex maray ma jirto laakiinse labada wiil ee kale la hadlaysay hooyadu ku mashquulsan waa gartay hooyadii waa dejisay marka aad qof dejiso caadiyan xagga dambe ma fiirisaa inta badan intaadan dhaqaaqin wallahi marar badan oo fiiriyaa marmarna ma fiiriyo laakiinse maalinkaas xagga dambe waan fiiriyo way ku seegtay maalinka way qornayd dib ma laha kadib waa tagtay maxaa dhacay
kabacdi waan tegey waan iska shaqo galay suuqaan dhex maray meelo badan baa suuqa dhex maray oo dhex wareegay binasiib cidna maanan qaadin kabacdi meel laga sharaabo oo bun iyo sharaab iyo lagu cabaan tegey kabacdi markaan xaggaa meesha istaagay wiil kale oo asxaabteeda ayaan la istaago isaguna bajaaj wataa kabacdi wiilkii bajaajtiisii aan dhex galay markaan wiilkii bajaajtiisa dhex galay ayaan dib u soo eegay bajaajtayda waxaan arkay bajaajteedu alaab bac madow halka dambe taallo markiiba sidiyaa dhigay waa soo degay bacdi madowed baan eegay waa bac madow oo lacag ka buuxdo oo aad lacag uga buuxdo kabacdi afkii baan ka xidhay sida ugu dhaqsiyaa badanna waan ugu celiyay marka guuleed markii aad lacagta heshay lacagtii aad aragtay dareenkaaga bal ka waran wallaahi dareenkayga horta markiiba waan naxay waan isbedelay waxaan dareemay inay hooyadii lahayd ay aad u murugaysan tahay oon si degdegan aan ugu celin markii aan meeshii ku laabtay waxaan tegey meeshii oo cidna joogin oo hooyadiina ka tagtay oo ka dhamaan meeshii oo faaruqa kabacdi gabadh meesha farmasi ku haysataan weydiiyey oon ku dhahay walaal qof alaab meelaan kaga tegay maad garanaysaa kabacdi dadka gabadhiiba qayliday oo tiri allaha walamaad gal wiilkii lacagta lagaga tagaa tahay soo celisay dadkii oo dhan baa isku soo jabay wallaahi oo aad igu mahad celiyey warma qaadan waayeenba qaadan waabay ku noqotay kabacdi hooyadii wiilal lambarkeeda kasii reebay baa wacay kabacdi sidiiba hooyadii ku timid lacagta okay waa maasha allah ma jiraan alaabo kale oo noocaas oo kaleeto oo waxyaabo lagu iloobay bajaajkaaga ma jiraan aad waxyaalo badan oo lagu iloobay way jiraan moobeelo dhar macbaco kabacdi badanka waan celiyaaba anoo wax aan u qaatay oo intii u reebtay wallaahi markaan reebay waan celiyaa dadka badankooduna bajaajlayaashuna waxay ku jiraan waxa weeyaan bajaajlayaal daacada weyn celiyaan badanka alaabaha lagaga tago in yar mooyaane maasha allah may taas waxay caddayn u tahay waxaa caddayn u ah maanta sida lacagta intaa gaaraysa aad u celisay marka haddii aad lacag intaa leeg aad celinayso taasi waxay makhraati u tahay de wixii ka yar yaraana inaad celinayso maasha allah guuleed waxaa jiray sawir baraha bulshada aad maaragtay la isula dhex marayay oo dad fara badani ay kugu hareereysan yihiin laguna dabaaldegayo bal waktiga ayada guuleed dareenkaaga ka war wallaahi dareenkayga aad buu isbedelay aad baan ugu farxay inaan hooyada dib ugu celiyo lacagtii dhammaan dadkii halka goobtaas ku sugnaana aad bay ugu farxay dabcan dad badan baa kula soo hadla intii dhacday waraysiyo fara badan baad bixisay maamulka dowlad deegaanku ma kula soo hadleen way la soo xiriireen si fiican bay la soo xiriireen waa gartay ma nooga sheegi kartaa wixii idin dhex maray maxay ku yiraahdeen markiiba dee xafiiska waxa igu marti qaaday wasiir ku-xigeenka xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo wasiirka iyo dhammaan xafiiska maalinkiina waa aniga garoonka igu marti qaadeen aan garoonka joogay oo waa gartay haddaan u weecano dhanka dhalinyarada bajaajleyda bal ka waran nolol maalmeedka dhalinyarada bajaajleyda suuq waase maxay maalinkii oo kale ka helaan ma jiraan maalmo aadan dad helaynin wallaahi horta way iska rafaasan yihiin dhalinyarada bajaajadii oo magaalada jigjigaad iskugu soo farabatay nin walba de wuxuu ilaahay u qoran maalinkii qaadaa laakiinse ayaguna aad bay ugu yar bajaajlayaasha aad ba dhibaatay ma ka yar sheegtaan laakiin sidii berigii hore maaha bay yidhahdaan maadaama bajaajadii iyo gaadiidkii iyo gaadiidyadii kale isku soo bateen haddana alxamdulilah wallah wuxuu ilaahay siiyo uga shaqeeya waa gartay guuleed dhalinyaro badanoo waxaa jirta bajaajka wadda oo deegaanada soomaaliyeed oo dhan ka wada xamar bay ka wadaan kismaayey ka wadaan hargeysay ka wadaan nairobi ka wadaan iyo meelo kale maxaad kula dardaarmi lahayd dhalinyaradaas dhalinyaradaas waxaan kula dardaarmayaa inay xoogooda xalaala shaqaystaan wixii xaaraan aan iska ilaaliyaan waxyaalaha lagu iloobin ay meelihii iyo goobihii lagu celiyo dib ugu celiyaan baan ugu baaqayaa dhammaan aniga iyo dhalinyarada kale waa gartay dhalinyarada soomaaliyeed ee ku daawanaysa iyagana guud ahaan maanta aad tusaalaha u noqotay iyagana bal maxaad u sheegi lahayd wallahi dhalinyarada waa aad baan horta iga mahad celinayaa dhammaantiin baan leeyahay asaad igu soo mahad celiseen aad igu soo ducayseen dhammaan dhalinyarada iyo dadka soomaaliyeed aad baan igu mahad celinayaa baan leeyahay maasha allah guuleed dhalinyarada bajaajleyda dabcan saad sheegtay waa dhalinyaro danyar ah
qutulyoonkoodana kasoo saarta nolol maalmeedkooda 7,000 runtii waa lacag aad u fara badan haddii hadda lagu siin lahaa bal ka waran wax fiican bay qaban lahayd wallahi waa gartay maasha allah maya insha allah intaa iyo in ka badanna way ku soo socdaan haddii ilaahay yidhaahdo run ahaantii daawadayaal guuleed waa halyey waa geesi waa shakhsi daacada waxa uuna maanta kor u qaaday magaca dhalinyarada bajaajleyda oo keliya maaha waxa uu kor u qaaday dhammaan magaca dhalinyarada Soomaaliyeed calaasha u maala guuleed waxa uu runtii mudan yahay bilad sharaf waayo waxa uu dhiirigelin u yahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed siiba madaxda Soomaaliyeed ee hantida hooyooyinka gaajaysan loogu soo dhiibo jeebka maalin caday ku shubta guuleed walaal aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa sida sharafta leh ee aad nooga ogolaatay inaan kaa qaadno waraysiga maanta ayo ma santaara aad baan kugu mahadcelin daawadayaal kaasi wuxuu ahaa guuleed Ibraahim oo awiil Soomaaliyeed oo ay bajaajkiisa hooyo Soomaaliyeed ku ilowday lacag waqti ay raacday bajaajkiisa ay ku ilowday lacag gaaraysa $7,000 guuleed ayaa arrin lama filaan ah sameeyay isla markaana hooyada Soomaaliyeed lacagteedii inta uu raadiyay dib ugu celiyay lacagtiina dib u siiyay hooyadaasna murugadii iyo walwalkii ay qabtayna ka bogsiyay waxaa jira olole ama GoFund account loo sameeyay guuleed oo loogu aruurinayo lacag abaalmarin ah fadlan linkiga hoose kaga qayb qaado inta aanu hawada dib ugu kulmi doonno barnaamijkan mid lamid ah aniga iyo guuleed iyo bahda Sheewal Media waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo